Waxaa jiray nin la oran jiray Abu Naasir al-Ayaad. Ninkaas wuxuu ahaa nin aad faqiir u ah. Waxa uu la noolaa xaaskiisa iyo cunugiisa wiil uu isagu dhalay. Kadibna maalin maalmaha ka mid ah isaga oo wadada fadhiya oo aad uga fikiraya wax la'aantiisa iyo sida ay gacmihiisu u maran yihiin iyo weliba gaajada daran ee uu saaka uga soo tagay reerkiisii. Waxaa wadadii ku soo maray nin oday ah. Kadibna xaaladii jirtay ayaa uu uga waramay. Waxaan uu ku yiri soo bax waxaad ii raacdaa badda. Badii ayay tageen. Waxa uu ku yiri ninkii odayga ahaa Abu Naasir, waxaad dhahdaa bismillaah. Kadibna shabaqaada ama geedii uu ku ugaarsanayay waxaad ku tuurataa badda. Sidii ayuu sameeyay. Isla markiiba waxa uu shabaqiisii soo qabtay oo ku soo dhacay kalluun aad u weyn oo noociisa uusan horay u arkin ama uusan ula kulmin intii uu wax ugaarsanayay. Kadibna ninkii odayga ahaa waxa uu ku yiri waxaad qaadaa kalluunkan waxana aad geysaa suuqa deetana ku soo bedel lacag. Lacagtaasna waxaad ugu gadaa cunto cunugaada iyo xaaskaada. Ninkii sidii ayuu sameeyay isaga oo faraxsan. Abu Naasir waxana uu tagay suuqii. Lacagtii uu ku soo bedelay kalluunka ayaa waxa uu la tagay maqaaxi. Waxana uu ku soo gaday 2 saxan oo cunto ah. Isagoo aad u faraxsan waxa uu soo aaday dhankii gurigiisa. Waxaa ka hor imaaday hooyo iyo gabadheeda aad u murugsan una ooynaya. Isla markiiba way uga warantay inay gaajo daran ku sugan yihiin ayada iyo gabadheedu maalmana aysan afkooda waxba aysan saarin. Kadibna aad ayuu uga murugooday. Dhinacyada ayuu eegay. 2dii saxan ayaa waxa uu ku wareejiyay hooyadii iyo gabadheedii. Isla markiiba hooyadii ilmo farxadeed ayaa ka soo daadatay. Cunugtii yareedna waa ay faraxday. Laakiinse Abu Naasir isaga oo niyad jabsan ayaa uu soo aaday dhankii guriga kana walwalsan sidoo isagoo gacmo maran oo ugu laaban lahaa cunugiisii iyo xaaskiisii uu saaka uga soo tagay baahida daran. Nasiib wanaagse inta uusan gurigii gaarin ayaa waxa uu maqlay nin oday ah oo ku qeylinaya yaa ka nool. Nin magaciisa uu sheegay markaas oo Abu Naasir dhalay. Abu Naasir aabihiis ayuu ku qeylinaya magaciisa inkastoo hadda aan iska hilmaamo magaciisa. Yaa ka nool wax uu dhalay ama qaraabadiisa ayuu ku qeylinayay. Isla markiiba Abu Naasir waa u tagay waxana uu ku yiri aniga ayaa ka nool oo waxaan ahay wiilka keliya ee uu ifka uga tagay. Odaygii isla markiiba muuqaalkiisa ayuu ka gartay. Bilcagsi wuxuu ku yiri haddii aadan dhalin yaraa lahayn isla aabaha ayaan ku moodi lahaa. Waxa aan kaa rabay inaan kugu wareejiyo lacag markaas aad u badneed qiimaheeda oo uu dhaho waxa aan ka deensaday 20 sano ka hor aabaha. Ninkii waa uu farxay wuxuuna u qaadan waayay qiimaha lacagta uu ninkaani siiyay aabihiis deynta uu ku lahaa ahayd. Isla markiiba waa uu soo baxay. Cunto ka qaalisan ayuu maqaaxi ka soo maray. Wuxuu imaaday gurigiisii. Noloshiisiina waa ay isbedeshay sida caadiga ah. Waxana uu noqday nin taajir ah. Guryo badan ayuu dhistay. Hanti badanna waa uu tabcay. Waxaa jirtay inuu ahaa nin sadaqo badan mar walba. Laakiin mar walba wuu iscajabin jiray. Naftiisa ayuu ka heli jiray oo wuxuu isdhihi jiray waxaa tahay nin sadaqo badan. Waxaa tahay nin wanaagsan oo dadka uu camal falo oo masaakiinta caawiya. Markasta naftiisa ayuu ugu sheekayn jiray inuusan jirin nin isaga ka wanaagsan. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa ninkii waa uu jiiftay ama waa uu seexday. Kadibna waa uu riyooday. Riyo ayuu hurdada dhexdeeda ku arkay. Waxay ahayd riyadu wuxuu maqlayay 2 malag oo isu yeeraya. Mid baa ku dhahayay soo qabo miisaankii ama kafada aan ku xisaabin lahayn dambiyada iyo xasanaadka ninka la yiraahdo Abu Naasir al-Ayaad. Kadibna 2dii malag mid baa wuxuu ku yiri waxaad ku ridaa dhanka sayi'aadka ama dambiyadiisa ku rid kafada ama miisaanka. Kadibna waxaad ku ridaa dhanka xasanaadkiisa oo dhan iyo wuxuu sadaqo iyo wanaag uu bixin jiray. Si nasiib xumo mar walba waxaa badanayay dhanka dambiyada ama miisaanka dhanka dambiyada ayaa ka qaalib noqonaya oo ka badanayay kuwa wanaaga. Waa uu naxay. Wuxuu yiri maxay sidaan ku dhacday. Waa loo sheegay waxaa lagu yiri mar walba waxaad ahayd mid naftiisa tacajubiyo oo shaydaanku waa u qurxi jiray camalada uu qabanayo heer aad aaminsaneed inaysan jirin cid ka sadaqo badan oo ka wanaag badan. 2dii malag ayaa haddana isu sii wacay. Wuxuu yiri ma jiraan wax hare
wuxuu yiri haa, waxaa haray 2 saxan oo isaga oo baahan, reerkiisuna baahan yihiin, uu siiyey hooyo iyo cunugeeda oo gaajaysan aadna ula ildaraa gaajada. 2dii saxan ayaa la saaray dhankii wanaaga. wax yar ayuu miisaankii soo sare kacay. kadibna wuxuu yiri malagii, wax miyaa haray? wuxuu yiri haa, waxaa haray ilmadii farxadda lahayd, ilmadii farxadeed ee kasoo daadatay hooyadii masaakiinta ahayd indhaheeda. kadibna ilmadii ayaa la saaray miisaankii, waa sida in la saaray dhagax weyn. si zaa'ida ayaa miisaankii u siyaaday, yacni miisaankii xasanaadka ayaa mar walba hoos imaanayay. malagii kale ayaa haddana u wacay kii kale, waxaana uu ku yiri wax miyaa haray? wuxuu yiri waxaa hartay dhoolla cadayntii gabadhii yareed ee farxada markii uu cuntada u dhiibay hooyadeed. dhoolla cadayntii ayaa la saaray, yacni xasanaadkeedii inta ay u dhigantay. isla markiiba waxaa haddana qaalib noqday miisaankii wanaaga oo waxaa batay xasanaadkiisii. waa uu farxay, hurdidii ayuuna kasoo kacay. maalinkaas kadib wax walba oo uu sameynayo wuxuu u sameyn jiray ikhlaas, waxaana uu ogaay in markasta camalka ikhlaaska ee Alla dartiis loo sameeyo ee sida niyadda ah u soo gaa uu yahay midka Ilaahay agtiisa ajirka iyo xasanaadka lagaga helo.